halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa saakay ka soo degtay diyaarad siday 150 dhalinyaro ah oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka u aaday wadanka Liibiya halkaas oo ay dhibaatooyin kala kulmeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in dhalinyaradan ay ku soo xiriso wadankooda safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub oo dawladda u qaabilsan sidii dhalinyarada ku dhibaataysan wadanka Liibiya loo soo badbaadin lahaa ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga waramay inta ay leeyihiin dhalinyarada soo laabatay iyo qorshaha inta uu yahay waxaan noo soo gashay inaan maaragtay ilaa 300 qofood aan soo register gareyno oo diyaar ah inay soo noqdaan hadda 150 ugu horeeyay ayaa yimid 150 ku xiga goordhow ay imaanayeen week ilaa 10 bari kadib marka waxaan rajaynaynaa maaragtay dhalinyaradeenna Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dibadda in maaragtay si degdeg loogu soo celiyo wadankan dhalinyarada Liibiya laga soo celiyay waxa ka muuqday dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen burcadda magafayaasha qaarkood markii laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ay awoodi waayeen inay socdaan waxaana lagu qaaday gawaarida yaryar ee loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba kuwana iyaga oo dhaawac qaba ayaa la keenay magacaygu waa Ridwaan Axmed Khaliif waxaan ahay shakhs kamid ah tahriibayaasha lagu soo celiyay wadanka Liibiya alxamdulillah ilaahay baa mahadle oo nagu soo celiyay si nabad leh nagu soo celiyay wadankaygii wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in kasta oo sanad hortii ay ugu dambeysay taasoo aan dib badan kala soo kulmay tahriibtii aan galay niyow oo markii hore aqoon la'aan yahaysay darteed ay geysay wadan aan garanayn kadibna laga qaatay lacag ciidda ka badan oo caqaqahan laga qaaday garaacis iyo jirdil lagu sameeyay laga qaatay Maryan Yaasiin waa ergeyga gaarka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha waxay ugu baaqday waalidiinta iyo waliba dhalinyarada doonaya in la soo badbaadiyo inay la soo xiriiraan dawladda federaalka Soomaaliya dadka haday ku xayiran yihiin wadan kasto wadamada Afrika wadamada Carabta kulli haday safaaradda Soomaaliya meesha joogto inay la soo xiriiraan hadii kale wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ama hay'adda IOM oo si toos aan ugu shaqeeyno oo markaasna aan isku dayi doono insha Allah inaan dhalinyaradeenna dalkeena aan u soo celino saameynta dhibaatada Liibiya ay kula kulmeen dhalinyarada waa ay ka muuqatay waa Cabdisamed Cabduqaadir oo kamid ah dhalinyarada dalkooda lagu soo celiyay hooyadiis oo joogta Burco ayuu la xiriiray markii ugu horeysay isagoo ku wargeliyay inuu ka soo badbaaday dhibaatada Liibiya dhibaato magaca dhibaato hadaan maqasho dhibaato waa Liibiya dhibaato hadii lagu yiraahdo dhibaato waa Liibiya way waxa arkaysaa qof islaam ashhaadada labada dhinac laga xirayo xarikaadka telefoonka marka lagu xiro hal ilbirqsi wax ka yar ayaa waxa loo gelinayaa qaybisada waa looga saaray waxay ku tuuraysaa oo aan garanayo kumanaan u dhintay nala socda imka nool fadho u jajabeen dawladda Soomaaliya soo celinta dhalinyaradan waxa ay kala kaashatay hay'adda socdaalka adduunka ee IOM Mark Lewis waa sargaal ka tirsan hay'adda waxaana uu la socday diyaaradii keentay dhalinyarada waa shaqo wanaagsan oo ku tusaysa sida dawladda Soomaaliya ay u doonayso in dadkeeda ay ugu soo celiso dalkooda inay soo celiso kuwa doonaya in ay soo noqdaan wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxa uu kamid ahaa mas'uuliyiintii dhalinyarada ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dufcadahan hadda timidii ugu badneed waa hore waxa la keenay 70 ilaa 300 kaloo soo socota anoo magaca xukuumadda ku hadlaayo waxaan aad ugu mahadinayaa dadka ka soo shaqeeyay Dr. Axmed Cabdikariin Nuur oo ah gudoomiyaha hay'adda qaran ee qaxootiga iyo barakacayaasha waxa aan weydiiyay dawladda waxay u qabanayso dhalinyaradan laga soo celiyay Liibiya dadkan hadda laga bilaabo waxa la geyn doonaa center hay'addu maamusho gacan ayada loo leeyahay hay'adaha IOM UNHCR-ka iyo xafiiska Prime Minister-ka iyo kulli team waa dawladda Soomaaliyeed hay'adaheeda kala guddisan qof kastaba 6 bilood oo soo socota si dadka kale loo taageero
nidaamka caadiga la marsiin doonaa lacag kab dhaqaale oo yar ayaa lagu talageli doonaa oo qofka ka tala siin doono tallaabadan waxa ay qayb ka tahay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku soo badbaadiso dadkeeda ku dhibaataysan wadamada dunida waxaana ka mid ah wadanka Liibiya oo inta badan dhibaatooyin loogu geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku maraya oo doonaya inay u gudbaan wadamada Yurub Cabdishakuur Ali Ahmed telefishinka qaranka Muqdisho